calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. asalaamu calaykum kusoo dhawaada Babs and Ninas. Maanta waxaan sameyn doonaa bariis aad iyo aad u fudud iyo hilib dhayla ah. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, please subscribe the channelka and then videogan like no saar and then you can share it with your friends and family. aad iyo aad ugu faraxsanahay inaa videogeena daawanaysid. So videoga hadda gudaha u sii gali doonaa. aad u mahadsantihiin. dadka qaar maxay isdhahayaan qof walba uu yaqaanaa bariisa loo kariyo hilib. So why a bariis and hilib si loo karinayo dad u tusinaysa, qof walba bariiska iyo hilibkiisa si kala duwan uu kaarsadaa. And sometimes marka caruur yaryariis haysatid, you need something oo maaragtay easy access oo maaragtay dhaqsi ku samaysan kartid. badanaa hilibka qaarkiisa marka dabka la saaro intaas u saacadood in la sugo waayo si uu bislaado. hilibka qaarkiisa hilibka kale uu ka jilacan yahay dhaqsiyo ku bislaada. marka dadka aad ay u kala duwan yihiin. ani camal had markii bariis karinayo biyo dab inta saara ma karkari katalka biyo ku karkariya dhag biyahayga kulula meesh ku shubtaa. mid kale ani bariis ma badala cibo. bariiska markaa karinayo biyaha ku kariya. biyaha markaa ku kariyo asiyoo jilcin oo wax yar maaragtay markii gooska la saaro wax adag gariis ku jiro ka dejiya. kadibna markaas waxaa ku daraa xawaashkiisa iyo wixiisa dhan. waxaan u sameeyaa basal la dubay iyo karooto la fiiqay. midda kaleeta videogan waxaa ku jira awareness here. dadka maaragtay food coloring bariiska ku darayo. food coloring waxaa la dhahay behaviorka dadka mise dabeecadda dadka uu wax ka bedela. so ilmo yaryar haddaa haysatid oo bariiska ugu dartid food coloring, waxaa dhici karto dabeecadooda iyo behaviorkooda maalintaas bariiska kalarka leh ee cuneen inay si kaleeta ilmahaada ay yihiin. haddii maaragtay ratidna inaa arrinkaas ogaatid, packageka mise boxka uu ku jiro food coloringka ka akhrin karta. marka sidaas darteed haddaa rabtid bariis oo maaragtay oranjo iyo jaale iyo cagaar iyo buluug iyo kalara kala duwan isku jiro qudaar kala duwan oo la fiiqay ku dhex darsan kartaa inta maaragtay kalarka cuntada lagu daro ku dari lahayd. marka hadda waa idin dul marayaa bariiska iyo hilibka maanta u sameeyay. hilibkaani soo gato waxaa waaye mid oo frozen kadibna hilibka iyo tuun iyo wax yareeto maaragtay oo kabsar caleen isku dareysaa mise bashiiliya midka rabtid. kadibna dabka saareysaa hilibka si fiican kugu karsamo 1 saac ilaa 1 saac bar ilaa 2 saac waqtiga haysid. kadib bariiska markaa sameynaysid katalka biyaha ku daarane. biyaha markay kuu soo karkaraan waxaa ku shubanaysaa digsiga bariiska ku korshubay wax yar markay soo badbadaan. bariiska baasta camala u karine marka wax yar oo maaragtay oo aadna u bislaanin oo aadna ceerin u ahayn oo dhexdhexaad mar walba inaa fiirisid waay. kadib biyaha ka mireysaa bariiska. biyaha marka xoogaa zaid ugu baxaan markaas dabka waxaa saareysaa wax yar oo saliid iyo maaragtay xawaashka iyo waxyaabaha aad rabtid bariiska inaa ku darsatid. wax yar oo tuun haddaa rabtid heela ku darsan karta. kadib bariiska ku korshube waa isku walaaqeysaa. wax yariis markay isku karsamaan daboolaa saare. kadibna waxaa kor ugu dareysaa saa hadda sameynooya camal videoga saa ka arkoosin karootada iyo basasha aad dubatay iyo wax yar maaragtay cagaar kala duwan haddii kabsar caleen haysatid haddii bashiiliya haysatid mid walba ku darsan kartaa. marka waa kana haddana khudaar yara meesh ku shubay hilibkii oo biyaha maaragtay kusoo karsamay waxaa u sameynayaa seasoning. marka meeshan xawaash kala duwan ku darooya. ani ahaanteyda markii oo hilib sameynayo waxaa ku daraa wax yar oo subag iyo maaragtay wax yar oo sooyo iyo xawaashka haysta. xawaash kala duwan jira dadka qaarkood xawaash oo maaragtay Soomaali xawaash la isticmaalaan. ani laakiin kuwa ani haysto isku darsadaa jiraan. marka alaabtaas isku marsatid waxaa ku dari kartaa wax hal xabo maaragtay maraq digaag wax yar waxaa ku darsanaysaa wax yar oo tuun marka waa kanaasa mitato ugu dhigtid hilibka kora ka marinaysaa. kor markii ka marisid waa muhiim dhinaca kale inaa u gadisid. okay, dadka qaarkood maybe hilibka hal dhinac wax laga marina waa iska kaftan intaas. marka labada dhinac hilibka ka marine kadibna ovenka gelinaysa waa ku daareysaa. maxaa ku hayn kartaa adi haddii rabtid 40-30 daqiiqo. haddaa rabtid aluminiumka kor waa uga xiri kartaa. haddii kaleetane
waa ka furi kartaa. Mideeda kaleete dad badan ayaan ka maqla oo dhahayaan aluminiumka ma fiican cunto in lagu karsado maadaama mataal uu ka samaysan yahay. Marka haddaadan maaragtay jeclayn aluminium inaad ku samaysatid saxanka wax ku karsanaysid aad toos u saari kartaa. Bariiska iyo hilibka hadda saasay usoo baxeen, wax yaroo salara u samaysanaysaa oo wax yar maaragtay cheese kor loogu daray. Alxamdulillaah, ilaahay hanoo daaweeye kulligeen. Intaa haysanina ilaahay ha siiyo, inta haysatana ilaahay ha u barakeeyo. aad iyo aad u mahadsantihiin. Please maaragtay channelkeena subscribe saar iyo like, and then you can share it with your friends and family. waad ku mahadsantihiin ina videogan aad daawateen. Salaamu calaykum. Another banger, baby calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for